kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaanu idiin soo gudbin doonaa wadahadaladii mucaaradka iyo dowladda federaalka oo dib u bilaabanaya xilli beesha caalamka saacadihii la soo dhaafay magaalada muqdisho ay ka waday dhaqdhaqaaqyo xooggan iyo kulamo siyaasadeed isla markaana la doonayo in wadahadaladu ay dib u bilowdaan xilli mucaaradka ay guddi farsamo ay soo magacaabeen oo wadahadaladan markaasi uga qaybgelaya dhinaca dowladda federaalkana waxaa laga sugayaa warbixin faahfaahinta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay wadahadalada la filayo in ay dhex maraan dhinaca dowladda federaalka iyo sidoo kale mucaaradka waxaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale inta warbixinteena aynu ku guda jirno khilaafkii u dhexeeyay galmudug iyo villa Soomaaliya oo mar kale sii laba qarxay xilli dhinacyadu ay isdhaafsadeen hadallo kulul waa villa Soomaaliya iyo sidoo kale galmudug hadalladaas warbaahinta la sumariyay waanu idiin soo gudbin doonaa kulamo xasaasi ah oo saacadihii la soo dhaafay dhacay oo dhexmaray siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada galmudug waana idiin soo gudbin doonaa oo waxaa jira qorshe qorqor uu u degay villa Soomaaliya oo uu ku doonayo in uu kaga hortago tallaabooyinka villa Soomaaliya ee ku aadan galmudug in laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah faahfaahinta ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal balse marka koowaad soo dhow muuqaalkan la garee sidoo kalena sii share garee si dad badan xogteena ay u gaarto waxgaag magaalada muqdisho waxaa la filayaa in ay dib uga bilowdaan wadahadaladii u dhexeeyay mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo horay u fashilmay isla markaana wax natiijo aysan ka soo bixin balse mucaaradku ayaa intaa wixii ka dambeeyay beesha caalamka ayaa intaasi wixii ka dambeeyay waxa ay u kaba qaadatay sidii dhinacyada mar kale la isugu soo celin lahaa maadaama xiisad gacan ka hadala ay dhex martay labada dhinac waxaa jira kulamo xasaasi ah oo saacadihii la soo dhaafay beesha caalamka ay la qaateen xubno mucaaradka ka mid ah iyo sidoo kale xubno matalayay dowladda federaalka waxaana xubnahaasi ay kala hadleen sidii xiisada loo qaboojin lahaa sidoo kalena wadahadalka dib loogu soo laaban lahaa qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa waxaa si gaar ah ay xooga u saarayeen dowladda Turkiga ay qayb ka tahay wadahadaladu in ay sii socdaan waxaana maanta magaalada muqdisho dib ugu soo laabanaya taliyaha xigeenka sirdoonka wadanka Turkiga kaasoo qayb ka ahaa wadahadaladii iyo waanwaantii magaalada muqdisho lagu dhexdhexaadinayay isla markaana la isugu keenayay mucaaradka iyo dowladda federaalka kaasoo markii uu xal ka gaari waayay khilaafka dhinacyada sheegay in muddo kadib uu soo noqon doono balse uu dalkiisa dib ugu laabanayo saacadii la soo dhaafay waxaa dhacay shirar iyo kulamo isdaba joog ah oo u dhexeeyay beesha caalamka iyo mucaaradka iyo sidoo kale beesha caalamka iyo dhinaca villa Soomaaliya kulamadaasi waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saaray waxa qayb ka ahayd sidii xaaladda loo dejin lahaa dhinacyaduna ay miiska wadahadalka ugu soo laaban lahaayeen xoguhu waxa ay tilmaamayaan in haatan beesha caalamka ay ku qasbayso ay ku riixayso dhinacyadu inay isku soo laabtaan isla markaana sheekada wadahadal aysan hori doonin mucaaradku waxa ay soo saareen ama iska soo dhaxuleen oo lagu daray Jubbaland iyo Puntland oo la isku dhaho golaha mustaqbalka Soomaaliyeed guddi farsamo waa laba xubnood oo kala matalaya Puntland iyo Jubbaland iyo saddex xubnood oo matalaysa madasha mucaaradka dhammaan xubnahaasi waa xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay u soo xusheen in ay ku matalaan wadahadalada dib u dhac wadahadaladan waxa keenay muran soo hareeyay ama soo kala dhaxgalay xubnihii mucaaradka ahaa ee muqdisho ku sugnaa waxaana murankaasi ka dambeeyay kadib markii qaar ka tirsan xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay soo jeediyeen in farmaajo uusan si gaar ah uga qayb galin shirka wadahadalada markaasi mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka waxaana ay soo jeediyeen in ama uu ku soo biiro golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo sidaas shirka uu kaga qayb galo xisbigiisa haddii ay saas dhici karinna in uusan markaasi soo fariisan gogol ay iyagu fadhiyaan waxayna diideen wadahadal saddex geesood ah in uusan haba yaraatay dhicin oo u dhaxeeya farmaajo oo dhinaca mucaaradka oo dhinaca iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo dhinaca arrintaasi way diideen intaasi wixii ka dambeeyay waxaa jiray wadahadallo iyo sidoo kale sidii dhinacyada la isugu keeni lahaa xaaladana loo dejin lahaa hadda waxaa muuqato golaha mustaqbalka iyo guud ahaan mucaaradka in ay soo xaliyeen arrimihii dhexdooda ahaa isla markaana guddi ay iska soo dhex saareen guddigaasna qorshihiisa uu yahay sidii ay u sii ambaqaadi lahaayeen wadahadalka waxayna la fariisan doonaan guddi farsamo oo kale oo dhinaca villa Soomaaliya ka imaan doona xasan sheekh maxamuud mar walba isaga fursad weyn ayaa ugu jirto
wadahadalladan inay sii daba dheeraadaan isla markaana guddiyo ay arrintan galaan sababtoo ah guddiyada farsamo waxaa loo baahan yahay inay soo turxan bixiyaan oo ay ka doodaan oo ay falanqeeyaan qodobada la isku hayo muddada intaasi la eg xasan sheekh maxamuud isaga waxaa ka yaraanaya cadaadiska iyo culayska mucaaradku ay ku hayeen haddii ay ahaan lahaayeen dibadbaxyo iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed ka dhaca magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud waxa uu haatan isaga oo muddo dhaaf ah oo mudahaleedkiisu dhammaaday weli ku sugan yahay filla Soomaaliya iyadoo mucaaradkuna ay u muuqato in haatan laga adkaaday oo uu awood military u adeegsaday waxaana hadda laga warsugayaa wadahadalladan dib u bilaabanaya ee beesha caalamku ay haatan karkarinayso ee la doonayo in ay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah oo jihada iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka go'aamin karta meesha uu aadayo doorashooyinka ayaa ah qodobka ugu xasaasisan ee haatan la isku hayo waxaana xasan sheekh maxamuud uu ku adkeysanayaa doorasho qof iyo cod ah xilli mucaaradkuna ay leeyihiin doorasho la isla ogol yahay kaliya ayaa dalkan ka dhici karta beesha caalamkuna waxa ay ku adkeysanaysaa in dhinacyadu ay isla qaataan hal nooc doorasho in dalka uu aado markana haddii aynu eegno galmudug waxaa saameyn xoogan ku yeelatay khilaafka arrimaha doorashooyinka xilli saacadihii lasoo dhaafay kulamo xasaasi ah ee ka dhaceen muqdisho iyo dhuusamareeb kuwaasna waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlay waxaa qayb ka ahayd sidii doorasho la isla ogol yahay galmudug ay uga dhici lahayd xarunta habar khadiijo ee nabad sugidda qaranka ee muqdisho waxaa ka qabsoomay kulan xasaasi ah oo u dhexeeyay mahad salaad iyo liibaan shuluq oo ah musharax madaxweyne ee galmudug oo xisbiga JSB ka socda kulankaasi waxaa fadhiyay xildhibaano labada aqal ka tirsan iyo siyaasiyiin ka soo jeedo deegaanada galmudug gaar ahaan beesha habargidir waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlayna waxaa qayb ka ahayd doorashada la filayo in galmudug ay ka dhacdo iyo sida loo wajahayo mahad salaad ayaa xoguhu waxay sheegayaan inuu u tanaasulay liibaan shuluq isla markaana uu dhabarka ka dharbaaxay una sheegay in uu markaasi gabi ahaanba ka tanaasulay sidoo kale waxaa goobtaasi fadhiyay oo hadalhayn badan abuuray gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Cabdikariin ninkaas oo la sheegay inuu yahay gudoomiyihii guddiga doorashooyinka balse haatan uu ku jiro olole shakhsi oo liibaan shuluq in uu u ololeynayo arrintaasi waxa ay fadeexad iyo ceeb ku tahay qorshaha xasan sheekh maxamuud maadaama gudoomiyihii guddiga doorashooyinka uu shakhsi ololihiisa uu wado oo uu yacni soo garab fadhiistay waxayna meesha markaasi haatan ka saaraysaa wixii la filayay ee ahayd doorasho qof iyo cod ah inay dalka ka dhacdo waxaana haatan bannaan ka imaaday wax walba oo la qarinayay oo ahayd in doorasho cadaalad ah oo qof iyo cod ah inaysan jirin balse doorasho dadban laakiin magaca ay huwan tahay ay tahay doorasho qof iyo cod ah maadaama gudoomiyihii guddiga doorashada olole iyo campaign uu ugu jiro shakhsi musharax ah qorqor dhankiisa waxa uu wadaa kulamo xasaasi ah oo saacadihii lasoo dhaafay looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee galmudug maadaama muqdisho ay ka dhaceen kulamo isdaba joog ah oo u dhexeeyay mahad salaad iyo liibaan shuluq ugu dambeynna ay ku heshiiyeen in doorashada galmudug aysan dhankooda isqaqabsi uusan ka jirin mahad salaadna uu ku tufay una fasaxay balse qorqor waxa uu ku adkeysanayaa in uu sii joogo galmudug oo siyaasadiisa uu kusii dhignaado isla markaana uusan aqbalin qorshaha haatan filla Soomaaliya ay wado degmooyinka Cabudwaq iyo Balanballe waxaa ka taagan xiisad culus kadib markii dad mudaharaadaya isla markaana hubaysan isu soo baxeen isla markaana ay sheegeen inay taageersan yihiin qorqor isla markaana aysan aqbali doonin doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacdo deegaanadooda waxaana markaasi xusid mudan in qorqor markan uu door bidayo in deegaanada galmudug uu ka bilaabo kacdoon xoogan oo looga soo horjeedo filla Soomaaliya qorshaha ay ka rabto deegaanada galmudug oo ah in laga qabto doorasho liibaan shuluq uu ku soo bixi doono oo la sii ogyahay natiijadeeda wasiirka warfaafinta ee galmudug oo ka hadlay xaaladda galmudug iyo mowqifkeeda waxa uu sheegay in wixii ka dhacay koonfur galbeed aysan ka dhici karin kana dhici doonin deegaanada galmudug isagoona hanjabaad culus diray kuna dhawaaqay go'aano culus ila daawada waxaan halkan idinkaga soo gudbinaynaa war saxaafadeed ku aadan mowqifka dowladda galmudug waxay mar kale cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan qabashada doorasho loo dhan yahay heshiis lagu yahay hufan isla markaana daah furan ha yeeshee waxaa nasiib darro weyn ah in gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Cabdikariin Axmed Xasan uu qayb ka noqday ole shakhsi la sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha galmudug
dowladda galmudug marna ma aqbali karto guddi doorasho oo qayb ka ah ole xisbi ama musharax gaar ah si loo ilaaliyo hufnaanta cadaaladda iyo kalsoonida geedi socodka doorashada. waxaa lagama maarmaan ah in la helo guddi doorasho oo madax bannaan, dhexdhexaad ah, una siman yihiin dhammaan musharaxiinta iyo xisbiyada ku tartamaya doorashooyinka galmudug. doorasho xor iyo xalaal ah waxay ku dhici kartaa oo keliya guddi lagu wada kalsoon yahay oo ka madax bannaan dano siyaasadeed iyo eex kasta. dowladda galmudug waxay ku baaqaysaa in la xaqiijiyo hannaan doorasho oo cadaalad ah si natiijada ka soo baxda ay u noqoto mid sharciyad, kalsooni iyo wada ogolaansho ku dhisan. wabilaahi towfiiq. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.